shirka jaraa'id waxaan u qabanay inaan wax ka nidhaahno hadal baryahaaba socday oo gaf iyo meelka dhac ku ahaa qoyskii madaxtooyada dhowaan ka tegey ee xilka wareejiyey axmed maxamuud siiraanyo iyo marwada qaaliga ah ee aamine sheekh maxamed hadalkaas oo uu ku duray nimaan laga filayn oo ahaa ninkii barbaarintiisa iyo daadahayntiisa uu lahaa ee wax ka dhigay axmed maxamuud xilal qaaliyana ku taxay isagoo marna ka dhigay komishanka xubintii kulmiye uga wakiilka ahayd marna taytal adag oo dadku ay ka qayliyeen uu u dhiibay oo ahaa chief of cabinet oon wasiirna ahayn wax kalena aan ahayn balse awood xooggan ku lahaa xukuumadda markii dambena waxaa loo dhiibay wasiirka madaxtooyada oo uu muddo joogay iskiina uu iskaga casilay lagama filayn xirsi inuu aflagaadeeyo ama meel sharaftiisa u dhimo ama meel kaga dhaco ninkii soo barbaariyey ee saaxadda siyaasadda keenay halkan uu ka leeyahay miyi ilaa madaxtooyo dee madaxtooyada waxaa keenay hore umuu joogine axmed maxamed waxaannu aad iyo aad uga xunnahay aflagaadada xirsi buugga uu ku qoray ee madaxweynaha ee uu isagu ka dhigay madaxweynaha ee uu ka dhigay wasiirkii madaxtooyada ee uu siyaasadda soo geliyey inuu maantana qoyska madaxweynaha waxuu ka sheego xaaraam weeyaan qoyska uu maanta uu aflagaadeeyey ee uu meel uu kaga dhacay in sharciga lala tiigsado oo aanan uga hadhaynin horta xirsi taa laabtiisa iyo qalbigiisaba taa horta ha u sheego waa madaxweyne karaamo iyo sharaf iyo qadarin ayaannu u haynaa bulshadu somalilan oo dhammi u haysaa buuggaa u qorayna asagunbaa ku sharaf dhacay ninkaa xirsi la yidhaahdaa saaxaddii siyaasadduu kaga baxay waxba maadyeelin maanu leyna madaxweynihii hore jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed maxamuud siiraayo adigaa laakiin waxay siiyaaday afarra yaroo nin riyebaa waxay u egtahay maanta inay xirsi haysato xirsi wuxuu yidhi haddaad gabay muhato meel fog baa lagu maqiiqaayo muska gurigaaga lama soo gesho iyo mudanahaagii haddaad muhato inaad buug qorto dee inaad muskii gurigaaga iyo mudanahaagii kula soo noqoto ceeb caleeg baaheed maanu leyna xirsiyow xidhahaagii odayaashaadii iyo qabiilkaad ka soo jeeddaba waa uga fadhinaa inantaa la caayey ina la caayo dhaqanumaynaan lahayne waa u fadhinaa annagu reerkiina talaga qabay baanu marna waanu ka wada damqanaynaa marna gaar ahaan baanu damqanaynaa inantayadii baa la eeya u soo gashay oo la taabtay waa wax nagu cusub diinnimada ku cusub islaamnimada ku cusub dhaqan ahaan ku cusub salaadiinta iyo culimmada waxaannu diyaar ula nahay inaannu baaqaan nabadeed aanu ka qayb galno oo aannu qaybtayada ka qaadinno dad walaalaabaad tihiin oo ehelaad tihiin oo isku midaad tihiin oo aan kala libdhayn oo aan weligoodna kala tegayn xabaaluunbaa idin kala kaxaysaa ma kala libdhaysaan weligiin ayaannu leenahay nabadda qaata walaalayaal qarankeenna iyo nabadgelyadeenna iyo horumarkeennana aan ka wada shaqayno